وعياتي طبعا كل قبر سوماليدا aniga waxba horteeda ku wicin waxna ha ku bahdilin kaliya taaniga ku arkay message qor amaan si ku dhaxaaskaygii ayaaba isku keen ogaatay fadligii ilaahay uu naxariistay sidii wax qadar ku sameeyay qadar ninkaygu wuxuu iskaga ka dhigay nin daacad ii noqday nin shukaansigiis ka dhaafay nin naagi hadlay iska dhaafay laakiin anigu waan aaminay wuxuu sameeyay qadar ilmahaygii ayaa markiiba ilma ay calool galay loo tiri degdegaan xareynay qadar waan xanuunsaday tabcaan baan noqday rafaad badan baan maray akhiiran qadar waan dhalay ilma aan caafimaad qabin oo xanuunsanaya إله سبحان الله هاي depression lagu dhalay qadar ilmahayga markaan dhalay buu dhakhtar ku jiray oxygen lagu xiray wadnaha daloola baa yiri qalniin fara badan baa qadar leeyo waa la gelinayaa dhowr mar isku xigtaa qalniin lagu sameeyaa qadar aanu adduunyo uma hayo isagu laakiin lacag uu haystaa ilmihii qadar sidii ugu xanuunsanaya bil dhakhtarka ku jiro bil kaliya ta jira ayaa buu ninkii tahiibayo Liibiyo maray adoo dhakhtarkii ilmihii kula jiro kaaba tagay baa haa adkaata qadar ilmihii yar wada joognay ayaa waxaan ku roolaa anigu maanta lacag ma haysto adduunsa u weyn ma haysto waxaan rabaa inaad caawisaan oo ii kacdaan maadaama ninkayga dhalayna uu tahriibay haddana aan cidi caawisa aanay jirin waxaan rabaa idinkaa dadkaygii oo intaasoo dhan dad suubihiis la soo joogeen ayaynu nahay inaad caawisaan baan rabaa qadar waa la caawiyey dad badan baa waxay qabtay ilmahaygii qalniin baa lagu sameeyey dhan waa la ii soo iibiyo guriga la ii soo dhex dhigo naqasku markuu ku dhigo neeftu qabato oxygen-taasaan ku xidhaa qadar markaan sidii aan ku noolaa ayaa waxaa dhacday inuu ninkaygii uu ka soo hadlo Liibiyo yiraahdo magafay haysta badan doonayaa inaan galoon maro sidaa ula soco ma kuu soo sheegin inaan tahriibay laakiin hadda sidaa ku ogo qadar waa ilmaha aabihiyo anu waxba igaga tagtay ilmo nolol iyo geeri u dhaxeed igaga tagtay adduuniguma dhiibin laakiin anu ku habaari maayo ilaahay badweynta ha ku dhaafiyo qadar waxaan ku xiray maxaa la lambarkiisii uu igala soo hadlay blog baan iska saaray waan iska xiray muddo qadar marka sidii uu ku maqnaa ayaa meel uu ka hadlayo iyo meel uu jaan iyo cirib dhigay waan waaye aniga ilmihii markuu iga xanuunsaday dad bay caawiyey qalniin baa lagu sameeyey ilmihii qadar qalniinkii kuma horeysaninoo dee caafimaadkiisii 100 muu noqon qadar waxaa laygu yidhi ilmahani qalniin labaad buu gelayaa kharash intaa iyo intaas waa inaad soo diyaarsaa lacag badan intaa leeg soo diyaarsaa qadar wax kharashaan hayaa ma jirto ilmahaygii waxa la iga soo waxaan hablo intaan u tagan ku waxaad ii samaysay maadaama aanu lacag haysan idinkuna intaad caawisan maanta haddana aydan caawin karin inaad ilmahan aad maxaa la dhahdaa aad maxaa la miidiyaha ii gelisaan qadar ilmahaygii kaasa la iiga soo caawiyey alxamdulilah ummad Soomaaliyeed baa ii kacday dad badan baa lacagay isugu soo kay dardaray ilmahaygii qalniin iyo lacag aan weliba waddankaan joogay maaha waddan kale aan ku keeno ayaabaa qadar la isiiyey maasha allah qadar ilmahaygii fiisa Turkiya ayaabaan la soo baxay baasaboor baan u sameeyey fiisihii Turkiga waddankii baan imday waddankii markaan imday fiisa Turkiya iyo baasaboor baan dalbaday alxamdulilah waan ku guuleystay qadar Turki baan ka soo degay Turki qadar markaan ka soo degay waxa dhacay markaan sida 20 maalmood aan u joogayna wali caafimaadkii ilmihiira aan la gelin
inaanan faamilin ha ila soo hadasho igu tidhaahdo ninkaagii oo qaylinaya oo dhibaataysan ayaa soo hadlay ninkaagii oo qaylinaya dhibaataysan ama gafay haysto aan dhimanayaa hayaayda hayaa soo hadlay malaan casimaha wada caawin doontaa hablow ninkaa ma caawin leedeen hablow ninkii aad ogeedeen ilmaha her kaaga baxsaday ma caawin leedeen waa caawin laa waa ooyinta ma caawin waa qosolka kulle masaakiin baa tina caawiya cabdiqaadirow waxaan ku uri lambarkuu kaa soo wacay deet waxay guti lambarkaagaan soo siinayaa lambarka hadda aad wadanka ka qaadatay maadaama lambarkaagii hore baloogaad ka saartay lambarkaad hadda aad wadanka ka qaadatan ii soo dir lambarkiibaan cabdiqaadirow aan u diray inantii way ila soo hadashay lambarkaygiiba u dirtay wuu ila soo hadlay wuxuu igu yiri magafay haysta wax alla wax adduun oo aan haystaana ma jirto ilmihii muu nool yahay ima odhan muu dhintay ima odhan laakiin wuxuu iga bilaabay magafay haysta lacag baan aan u baahanaha haysta lacag baan aan u baahanaha cabdiqaadirow waa ninkaygii waa caruurta ilmahayga aabihii waxaan ku odhi hadda laakiin dahab anigu aan iibsaday oo wax yara oon $1 xataa wada gaadhahayn ayaan kuu soo iibinayaa waanan kuu soo diraya halkeen ku diraa dahab baan hayaa baan ku odhi aan $1 aan qiimihiisu wada gaadhayn lacagta iisoo sheeg أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل إنه فريدة مسلسل بعد بس أقرأ هاي إيه بالذهب كله إيبي قصة cabdiqaadirow dahabkii waan iibiyey waan u diray lacagtii nambar lagu dirayo iisoo diray waan u direen iibiyey ninkii halkii wuu ka baxay lacaga kalaa la yskugu daray wuu ka baxay alxamdulilah badweyntii wuu ka badbaaday cabdiqaadirow ninkani isagu lacagta magafa ma siinayo gabadh ayaa wuu meesha uu ku qabaayo gabadhii ayuu lacag u raadinayaa gabadh buu meesha ku qabaayo gabadhii buu lacag u raadinayaa ka dhiman oo doonta ay ku raacayso maasha allah ilaah isku barakee isagee gabadha miyaradii baa lagaaga sameeyey lacagtii ay ku baxay le ku soco cabdiqaadir waxaa dhacday maalmaha ka mid ah waad baxaysaa dee libiyaad ka baxaysaa deet wuxuu igu yiri safarkii baa la diyaarinayaa dhowr qof oo lacagi ka dhiman tahay ayaa la sugaya dhowrkaa qof asmaa ii soo ducee waxaan rabaa inaan adigii ilmahayga insha allah meesha horeysa ilaahay uu cagaha dhulka ii dhigo meelaan taliyaan ahayn horta iskama dhiibay meeshaan cagaha dhulka ilaahay uu ii dhigo inaan adigii ilmahayga idi kaxeeyo ii soo ducee inaana badda waxba ku noqon cabdiqaadirow baddii wuxuu noqday doonta nimanka kaxeeya ee iyagu dee shoofeerka maxaa la dhahaa darawalka miyuuha aduu shoofeer bu ahaa naaquda ay noqday doontii dadka isagaa ku kaxeeyey doontii cabdiqaadirow markuu dadkii ku kaxeeyey ee badweyntii la marayay muddo 5 habeen ay baddii ku dhex rafaadsan yihiin ayaa nasiib wanaag adigu waa la badbaadiyey markii la badbaadiyey waa la dhahay doontan dadna way ku dhinteen dadna waa ku rafaadsan yihiin ninkii waday hala sheego cabdiqaadirow waa la sheegay codkayga caadi soo maha waa la sheegay ninkii waxaa layidhi nin hebelkaasa ayaabaa waday cabdiqaadirow xukun baa ku dhacay waa la xukumay muddo 3 sannadooda meel uu ka hadlayo iyo meel uu marayo midna ma arkin ayaaba maalmaha kamid ila soo hadlay wuxuu igu yidhi asmaay anigu waxaan doontaanan waday marka hadda nasiib wanaag waan soo baxay waana laysoo cafiyey muddada intaa leegna waan xidhnaa haddana sidaa talyaani baan doonaya inaan dhigtoon iska dhiibo insha allah waxaana rajaynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan idin sheegto adigii ilmahana la iisoo keen qaaday saas ula soco
هيا بنقولي هديت نبض قبتها الحمد لله cabdiqaadir anuu ilmahaygii turki dhakhtar baan la galay sacuudiga qalliin baa lagaga sameeyey turkina 3 qalliin oo kale lagu sameeyey wadnahoo keliyaata in yar ilmahayga cabdiqaadir markuu socdo halka labada naas dhexdooda wax inay dalooshaad moodaayo fugtaasay haysaa ilmi yaraabaan ku mashquulay cabdiqaadir oo ilmi yaraabaan waqti siiyey ilmihii baan doonay inaan maxaa la yidhaahdaa uu caafimaadna uu helo dee dumar ma raaco cid lama sheekaysto ilmahaygaas baan adu ilaaliya ninkii meeshii buu iska dhiibay talyaani markuu talyaani iska dhiibay halkuu igu yidhi ilmahaygii adigaan ku qoranayaa anigii ilmatoonana muu qoranin waxaa dhacay cabdiqaadir oo waxaan ku odhi biilkii yad siiyeen way iga dhammaadeen waxa la waxaan hayaana ma jirto ilmi yaraa waxaan dabka ugu shuba ma haye bal kolaad 100 iyo ama 150 aad ii soo dirto wax ii soo dir ma u soo diray abadin la tahablow ninkii ay dahabkeeda u soo diraya yaa ku soo asma cadka waxa muud gelin codka ma soo laalaabanaya hadda marka muud gasho soo laalaaban muud kana ku laqan cabdiqaadir oo deeto waxaa dhacday wuxuu igu yidhi hadda anuu lacag ma hayo wax lacagoo haba yaraataan ku dhahdo lacagtaasaan kuu heli karaa ma jirto waxaad dee dadkii awal wax ku siin jiray ee intaasoo qalniina ilmaha kuugu sameeyey ilmaha dadkii wax kuu siin jiray ama nin haada ama naag ha ahaade ka raad soo doobiigu yidhi cabdiqaadir oo waan marar laacay waan cadhooday waan qayliyey waxaan dhakhtar uu ku jiro oo qalniin lagu sameynayo oo kharash layga rabo ayaa intii aan adduunka naxayay dahab yar aan haystay aan kuu soo iibiyey oon kuu soo diray waxaanan maqlay baan ku inaad xaas kale aad liibiya guursatay ood xaas kale liibiya ku guursatay kharashkaygiina kharash gabadha kale uu ka dhinaa inuu ahaa intaba waa la ii sheegaan kuuri warkaaga waan hayaa ilmahaagana ilaahay baana u qadaray baan kuuri inuu xanuunsado ilaahay baana u qadari doona inuu sii noolaado iyo inuu dhintaba anigu marna lagama yaabo inaan ka nabsi galo ilmahaaga waan korinaya intaan korin karo marka waxaad ku seexataad kusoo toostaa baan kuuri nafsigaygu inaanu marnaba aanu kaa maqnaan doonin la xawla walaa quwwata illaa billah adro turki sidii aniga u jooga ninkii meel walba blog biga saaray meel aan jirto meel aan kala xiriir habeera ma jirto cabdiqaadir oo turki waxa iigu timiday oo timid ninkaygu markuu guriga uu joogay naagtii sariirta dushiisa kula sheekaysan jiray ayaaba turki iigu timiday naagta cabdiqaadir oo markay turki timid ayaa maalmaha ka mid a ayaa waxaan isku aragnay meel makhaayada oo ku taala istaanbul dhexdeeda ayaabaan isku aragnay dadka waxay igu tiri heblaayoy ma fiicantay anigu markaa gabadhan madaxaasaaba iga xanuuday naag ninkayga naf ka daydayo ninda heblaaye ay garanaysaa uu qabo naag naf ka dayday agteeda qiimaba kamalo waan dhaafo waan kasii jeedsaday cabdiqaadir oo muddo markay naagtii ay halkii joogtay ayaaba waxaan isku dayay inaan dhowr qof oo ay saaxiib la tahay aan isbarbarano oon iswarwareysano cabdiqaadir aniga ninkaygu meel walba blog biga saaro meel aan xiriir iskaga leenahay haba yaraatee tiisaba ma haynu isagu dhalayba lama moodin anuu keliga dhalay baa loo haystaaba waxa dhacday cabdiqaadir oo in maalmaha ka mid a inantii inan ay saaxiib yihiin annagoo meel wada fadhinaa asmaay walaalay gabadhan nin baa la soo hadla talyaaniga jooga waxaanay noogu sheekaysay inuu ninkaaga yahay ninkaagma talyaanigu jooga waan naxay cabdiqaadir oo waxaan ku uri walaalamay talyaani wax joogaanu ma garanayo ninkaygu talyaani ma joogo faransiisku jooga baan ku dhawan dafira waxaan ku uri goormo la soo hadlaa ninka bal sawir ma ka haysaa baan ku uri cabdiqaadir oo nambarkeeda ayaabay
ku seef garaysay taleefanka inantan nambarka ninka Hee. waaba isagiyo sawirkii iyo brofailka soo saartay yaa ninkaygii naagtan ay xiriirkooda leeyihin laba sawiro aanay wada gelin oo saa la iskugu soo dhajiyey oo la isku soo hagaajiyey oo brofailka saara Hee. waan naxay cabdiqaadir waxaan ku odhi anigu waxaan ku odhi waray ma garanayo ninkan wejigiisana weli ma arkin ee waad ma garanaya baan ku odhi rad qaldan bayd ka dhaadhicisay ninkaygu waan ku dhawa nin halkan bay imkaygu og inay kaxeeyana raba faransiis baanu oga hay wareerinin marka magaalada dhex maray inaan lay odhanin ninkani hayaay waayo hiblaaye ninkeedii naagtan baa wadata in laygu dhahdo waayo anigu waxaan ogay agtiisa qiimaan kale inuu meel walba iga xidhay dadkii kalena uu la hadlayo sawiradoodii isku soo dhadhajinayaba markaana sabcadeeda dhowrtoon idhaahda ninkan maba garanayaba anigay dan iigu jirta waa gartay cabdiqaadirow deeta waxa dhacday sheekadii markii sidii ay ahayd ayaa maalmaha ka mid a nambar kale ayabaan ku wacay waxaan ku odhi ilmahaaga yaraniyo waa serious aad buu xanuunsan yahay lacag $1 baanu u baahan yahay $1 meel uu ka keeno $1 buu ilmahaaguna xaalado adag buu soo maray heer waxaan gaadhaan miidiyaha uga dawarsado aan dee lacag icaawiyay aan idhaahdo inaan ilmahaaga haddana dad lasii joogto lasii baryo waa wax aad u xun baan ku odhi marka waxaan rabaa ninow inaad kharash hadii soo wixii igu yidhi cabdiqaadirow naa kharash laynne ilmahan anigu inaan dhalay iyo inaanan dhalin midnaba ma haye orodaygala tag buu igu yidhi ilmahan inaan anigu dhalay laa xawla walaa quwwata illaa billaahi alcadiim oo yaa dhalay stubudio haye muud ka soo baxasma waxaan ku yidhi cabdiqaadirow haddaa yaa dhalay deeta wuxuu igu yidhi na awalba waxaad ahayd khadaamad sacuudi ku nool anigu nin ku jecel maan ahayn tiraa baan ku garanayaa inta jeere aan dee koolkaa soo wacay mana islihi anuu adigaa ilmahan aabboo ah laa xawla walaa quwwata illaa billaahi alcaliim haya cabdiqaadiro waan amakaagay waxaan ku hadlan garan waayey ha ooyin walaalo nafis walaalo way dhacdaay hablo badan bay waxaa isla haysaa hadda iska nafis guys sorry samarda ka dhiga cabdiqaadir waxaan ka odhi anigoo gabadh sharaf la baan ahay ninkaygii horena nin si sharaf le ii guursaday weyaan adiguna hadda nin sharaf le inaad tahay baan kuu malaynaya laakiin qofka biniaadanka isagu wuxuu yahay ayuu ku mooda adigaas binaa ku hunguraynaya anigana ma sidaadadi moodaysaa cabdiqaadir wuxuu igu uri anigoo waad ogtahay inaan liibiya imikana mid ku guursaday haddana ta turki kula joogteed aad iiga shakidad leeday hiblaayaad la soo hadashay hiblaayaad la socotaa ayaabaan doonayaa inaan isla adigoo bartaa joogaa soo guursado oon weliba ugu imaada adigoo bartaa jooga inaan isla naagtaad hadda iiga shakisan tahay aan barta adigoo joogaan ugu imaadon ku guursado ninkeedii aan noqdo ayaabaan ku tusayaaba cabdiqaadir oo igu ori laa xawla walaa quwwata illaa billaahi alcali alcadiim kaas waa ninkayga hablo ma sii dhihi laydeen ilaahay ku dhaari ninkaas ma la sii joogi laydeen